السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo wiil dhalinyaro ah, nin adigu dhalinyaro ah. Soomaalida wiil baan iska dhahnaaye, nin weeye, wiil waa kuwa yaryare. Kuwan qaan gaarin baa wiil la dhahaa dhulalkan aan joogno. Laakiin Soomaalidu nin weynaaday oo qaan gaar ah oo 20kii dhaafay oo tiro 30aad ku jiraan waxaan leenahay wiil. It's not wiil, but nin dhalinyaro oo maslax mideeya la yiraahdo ayaan rabaa inaan ka hadlo arrintiisa. Waxaan arkay wiilkii oo barooranaya oo ooyaya oo maxaan ku iraahdaa sidii dumarkii u barooranayo hoogaye baayay kaliya ka dhiman. Hayaay waa la dilayay, iridka la ii taagan yahay, waan dhimanayay, waa wareey bule. Horta su'aal baan idin weydiiyay, fanaaniinta tan cidda disha iyo cidday ka ooyaan iyo waxaan baacsanaya iyo waxaan raba inay dilaan maxay yihiin? Taasaan anigu garan waay. Waxaa way ilaa ay hadda 3 fanaanaan maraynaa waxa ooyaya waa Qamar Suugaani oo ka ooyi jiray Kenya Nairobi oo dhihi jiray hargeysadeeda la ceshooy waa lay taagayay war hayaay wariga soo gaaroy iyo mar uu Jabuuti tago oo maxaan ku waa lay dilayay mise waxay ahayd maxaan ku dirir dhabe adigu labada meelood mid bay ahayd uu ooyay uu leeyahay ishaasa la igu dhuftay ilba bruus ahayd oo madoobeyd ishaasa la igu dhuftay hayaay waa waray uu ooyay caadi uu ooyay wariga kaxeeyo waa waray war hargeysadeedii wariga igu cesha hargeysoy war hargeysaha la diroy buulaha oo maar barbar ba asagana ku xigay oo asagana ooyay oo dariiqada cararayay oo aan gawaaridaba ka waabanaynin oo lahaa waa lay dilayay sida hadeer maslax mideeyo kale waa lay dilayay hayaa iga soo gaaroy triangle-ko way badbaadi marka ma garanayo wiilashan fanaaniinta waxa haya iyo waxa baacsanaya iyo waxa dilaya ma garanayo. Ninkan maslax mideeyo ah arrintiisa kolay waxa loo tiiriyay ama loo dusha laga saaray ama haday jirto iyo hadii kale Allahu aclam. Bad Jabuuti wax fiican lagama sheegaynin. Madaxda Jabuuti iyo family-ga Ismaaciil Cumar Geele iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo Ismaaciil iyo wax fiican lagama sheegayn iyo inta dawladda ku jirta oo dhan. Waa taa wiil Fuaad la dhihi jiray xireen oo suuli ku xireen oo baranbara cuntay oo korkii oo dhan go'ay wasaq iyo qurun oo cudurro ku dhaceen. waa tan maxaan ku iraahdaa ishag sahra ka carartay fanaanadii weynayd ee buuraha iyaga buurta u dheer qaadi jirtay fanaanadii qaran ee maxaan ku iraahdaa reer Jabuuti ee habar Jabuuti ee Soomaalida kale u taqaano waa ta carartay oo gashay Canada oo Canada ku nool oo qabowgaas halka fadhida iyadoo qof weyn ah waxay ka carartay waxa lagu leeyahay waa Ismaaciil Cumar Geele iyo family-giisa iyo dawladda waxa ku jira sheekh weyn waa aragteen sheekh iyo siyaasi iyo maxaan ku iraahdaa fanaaniin balamadeyn sheekh weyn ee Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waa ka cararay waa ka isagana jooga hadda North America waxa uu sheegay waxaan ka cararay buu yiri dawladda in la xiraal rabay waa baxsaday. Marka wadankan laga wada baxsanayo oo dadkii u dhashay ee asalka u lahaa ka baxsanayaan ba anigu la yaabanahay iyo balada iryanaysi balada ay ka cararayaan. Kole bili aadanka wixii la sheeg waxba ka jira. Ninkan 30 sano iyo ka badan ayuu dalka haystaa. Dabcan markastana isaga la doorto how possible wax uu dadka u qabtay oo aan u jeednana malaha. wuxuu qaataa lacag badan adduunkii oo dhan ayaa fadhiya Jabuuti waxaa fadhiya inta adduunka ciidan ku nool ayaa fadhida in dhayar Mareykan Yurub Arab wax ka maqan malaha
halkaasay fadhiyaan. marka waxaas oo lacag u ka qaataa dadkuna sida la sheegay 3 milyan iyo wax yar weeye. dadkaas hadda hadduu lacag u qori lahaa kulligood mushahar ka tiro badan oo maxaan ku rahdaa wax walba ay ku iibsadaan oo wax walba ay ka gataan oo guryo ka dhistaan ayay qaadan lahaayeen. laakiin aaway afrikaan hala wada noolaado ma yaqaano ninka afrikaanka ahi. weliba soomaaliha ugu liidato. soomaali waa ayax madaxdoodu ma xishoodaan. yaa waa aragteen xasan sheekh maxamuud waxaa soo tababaray waa ismaaciil cumar geelle. xasan kalkii hore uba roonaa, goortii hore ayuu roonaa. haddeer gooratan waaba ka sii daray. ismaaciil cumar geelluu bara dheereeyey. qabriyadii buu ka daba tegey, wax uusan samayn ma laha. dalkiibuu iibiyey, dalkiibuu maxaa la dhahaa tafaraaruq ka dhigay. waa sariftay dalkii, waa sariftay. maxaan ku idhaa khayraadkii waa sariftay. wax u daayay male, wax uu reebtay male. marka ninkan yar waxaa lagu leeyahay siyaasaddii ayuu dhex galay. dabcan xaq buu u leeyahay siyaasadda inuu dhex galo. waxaa weeye waa nin dhalinyaro ah. siyaasadda wuxuu ka yeelan karaa tan kale. fanaaniinta iyo siyaasadda ma kala marna. ninkan heeso uu qaaday baa lagu haystaa baa la leeyahay. heesahaasuu qaaday, heesahaasaa lagu soo weeraraa la leeyahay. waxaa lagu leeyahay maxaan ku idhaahdaa mar waxay leeyihiin dadka reer Jabuuti way soo qabsadeen. dad aad u baqaya weer dadka reer Jabuuti waa aad bay u baqaan. waxaa arkaysaa way wada difaacayaan intooda badan, way baqayaan. wax yar ma ogiye, waayo dalkoodii bay rabaan, dadkoodii baa ku nool inay u noqdaan bay rabaan. haddana way baqayaan oo hadday xaqa sheegaan ama runta sheegaan waa la xirxirayaa, halanbaqaa lagu ridayaa. taas probleme. marka ninkan yar waxaa la yidhi bad buu galay. waxaa la yidhi heesuu qaaday oo maxaan ku idhahdaa kicin ay ku jirto uu dhalinyarada kicinayo. wuu leeyahay ka kaca meesha, aan iska dulqaadno foostadana dul taalla. foostadan weynaatay eena dul taalla aan iska riixno, iska xamaallo, iska dheerayno. eena jaqaysa sidii gafani ku naaxdo calooshu weynaatay aan iska dulqaadno ayuu leeyahay. dhalinyaro dalkaa qabsato weye micnaheedu. runta waana wax sax ah, waa wax xaq ah. qofka hadduusan waxba qabanayn meesha inuu iska fadhiyo waa qalad. inuu iska nuugo isagii famligiisa waa qalad. gabdhihiisi iyo nimankay qabeen bay xataa usoo dhacay wadankii dhuuqayo oo ajaanib ah baa lagu leeyahay. diyaarado iyo adduun u kiraysan yihiin. haw dadkiisii oo baaba'ay. nin qalaad oo shisheeye ah ee afrikaan ah fuufu ah in maxaan ku idhahdaa uu wadankii dhuuqo dadkiisana ay ka gaajoonayaan. xaq ma aha taas, wax fiican ma ah. waa wax laga xumaado, waa wax laga yaqyaqsoodo. It's not nice. marka waxaa weeye ninkan baddaasuu dhexgalaa la yiri. marka tan kalena waxaa looga shakisan yahay oohintan ma aragtay ooyayaan dadka markay qaataan muqaadaraad ka tan badan way ooyaan. nin raga oo fiyow oo maskaxdiisa taam tahay saa uma ooyo. whatever iridka loo taagan yahay, whatever bastoolad lagu hayo sidaa uma ooyo. hawa raggii Soomaaliyeed ee geed adayga ahaa ee ragga ahaa maxay tahay? qofka bini aadanku wuu ooyaa laakiin too much midaan. I don't understand too much. waa lay dilayaa eega soo gaarooy. weligii ma arag dumar xataa qaar baan saas u calaacalin oo sidaa u barooran oo sidaa u ooyin. marka wiilka waxbaa ku saayid ahaa baan isleeyahay anigu. waxbaa saayid ku ahaa. ilaahay u gargaaro, wax kale ma dhihi karne. kolley sun baa la siiyaa lalahaa. islaantaasoo dah u ahayd baa lalahaa. marka dadka
dadkii reer jabuuti oo hadlaaya kulley social media ka hadlaaya oo meegaga soo qabsanaya waxay dhaheen islaanta ismaaciil cumar geela sodahu ah oo ismaaciil cumar geele gabar wiilka kan yar la eg maba lahe ma islaamihii waaweynaa buu guursaday wiilku waa yaaba waa isweydiiyey mise waxa waa been ma naqaan sun baa la siiyey sunti baa dhakhtar baa la dhigay sunti baa maxaan ku irahda laga dhaqay oo maxaan ku irahda hadeer waa iska fiican yahay laakiin waa la kaxeeyo wuxuu ku jiraa xabsi guri baa lagu leeyahay oo waaba la xabisayba ninkan sida la sheegay beesha ciise wuxuu ka yahay furlabe reer la yirahdo furlabe oo reer diridhaba ah waa dadka diridhaba iska leh ciisaha diridhaba iska leh weeye saan maqlay marka waxaa weeye oo ismaaciil cumar geelaba waxaaba la sheegaya wuxuu ka yimi laftirkiisa diridhabaha maba ahaa la yiri maxaan ku dhahaa ciisaha jabuuti maba ahaa la yiri ismaaciil cumar geele meesha xoog iyo muruqu ku joogaya waxaa la yiri waa ciisaha diridhaba dega ee soomaali galbeed dega waaba yaabayba marka waxbaa qasan wiilashan waxa ka oohinayo iyo waxa u qaaqaayira iyo waxay arkaan ma garanayno saddexdan nin ee fanaaniinta ah fanaaniintana weligoodba balwadaha waa lagu xaman jiray inkastoo fanaaniintii waaweynaa ay jiraan fanaaniin aan balwadba lahayn oo weligood xataa sigaar cabin marka dee ma garanayn waxay tahay midaan ma garanayn fanaaniintan yaryar waxa helay ma garanayn balaayo iska dhaamiyaan markaas sidii dumarkii u ooyaan oo sidii dumarkii u calaacalaan oo dumarkaaba isdhaame ah dumarka kuwooda masaakiinta ah maaragta oo jilicsanta ah wiilasha waxayba noqdeen raggi jilicsan runtii ma ku diganayo laakiin waa ceeb oo intaas le sidaas ah aniga waan yaabay runtii waan ka digigixday waa maxay baan iri waxaan waa maxay noocan nin u ooyaya muxuu yahay waxaa ogeyn maxaa la dhahaa waa marbarbar waxaan haddana aragno waa licas ahayd haddana qamar suugaani waa ogeydeen waa licas kale ahayd waa lay dilayey ha meqo jeer buu ooyo yiri waa lay dilay baladan dilaysa maxay tahay horahee dhahay haddaa bala cuntaan oo bala liqdaan yaa abeesooyin iyo hangaralayaal haddaad liqdeen warbal iska daaya waxaan iska yareeya waxaan waa ceeb sidaasoo dhan ayaa u cabaadaysaan hadhow u ooyeysaan adinkoo iska warqabin marwaanii salaamayaa intaasaan ka hadlaaya wiilkan ilaahay ha u dhibdhaamo haddii sun la siiyo runtaana allaha ka badbaadiyo kulley wuu ka badbaaday oo wixii waa laga maydhay baa la lahaa anigu jabuuti ma joogno laakiin dadka reer jabuutiyo soo hadlaaya baa sheegaye ilaahay culayska iyo caburintana ha ka dulqaado iyo dhibta iyo gaajada iyo rafaadka haysta dadka reer jabuuti ani salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu